waxaa habeennimadii xalay ahaa xarunta xalane ee magaalada Muqdisho kulan gaar ah ku wada yeeshay madaxda maamulada Puntland iyo Galmudug Siciid Cabdilaahi Deni iyo Axmed Qorqoro kuwaas oo khilaaf u dhaxeeyay bilooyinkii la soo dhaafay. Kulanka labada madaxweyne ayaa waxa soo abaabulay gacanna ka geystay xildhibaano iyo senataro ka soo kala jeeda deegaanada Puntland iyo Galmudug kuwa oo ugu dambeyntii isu keenay labada madaxweyne. Kulankan oo albaabadu ay u xidhnaayeen ayaa waxa uu dhex maray xalay toole madaxweyne Deni iyo Axmed Qorqoro waxa ayna labada dhinac ka wada hadleen sidii meesha looga saari lahaa khilaafka iyo madmadowga soo kala dhex galay labada dhinac. Sida aan wararka ku helnay, labada dhinac ayaa isku afkartay in ay kulamo kala yeeshaan isla markaana isku soo dhawaadaan. Waxa ayna sidoo kale isla qaateen in la hirgeliyo heshiisyo ay horey u gaadheen Deni iyo Axmed Qorqoro. Madaxda maamulada Galmudug iyo Puntland ayaa khilaaf hoose soo kala dhex galay, waxaana khilaafkaasi gaadhay in warbaahinta la isu mariyo dhaliilo laguna soo bandhigo wararka hoose ee dhex maray madaxweynayaasha Puntland iyo Galmudug.